kala qaybsanaanta xubnaha mucaaradka waxa ay noqotay tallaabo hoos u dhigtay markaasi awoodoodii iyo qorshe kasta oo ballaaran oo ay doonayeen inay ku wajahaan xasan sheekh maxamuud iyo sidoo kale qorshihiisa muddo kororsiga dheer iyo sidoo kale waxyaabaha uu ku doonayo inuu kusii joogo fila Soomaaliya. kulamo dooceedyada kala duwan ee beesha caalamku ay u qabanaysa dhinacyada Soomaalida ee isku haya markaasi doorashooyinka iyo hanaankooda waxa ay noqotay mid kala saartay awoodda iyo sidoo kale cidda ay beesha caalamka danaynayso. xasan sheekh maxamuud beesha caalamku waxay ula hadlaysaa si gaara sidoo kalena waxaa jirta maxamed cabdulaahi farmaajo inuu yahay mid isaguna si weyn u dardargelinaya sidii uu mar kale kusoo noqon lahaa kursiga isagoo markaasi budadiisa ay gaar ugu tuman tahay. laakiin waxaa muuqata in qorshaha siyaasadeed ee markaasi golaha samata bixinta ay u hogaamiyo Sheekh Shariif Sheekh Axmed oo lagu daray golaha mustaqbalka Soomaaliya ay qayb kale yihiin hogaamiyaasha maamulada Puntland iyo Jubbaland ay noqotay mid xaaladda sii adkaysay marka laga amba qaado sida ay hadda wax u jiraan. kulamadii ugu dambeeyay beesha caalamku waxa ay shaaca ka qaadeen dhinacyada Soomaalidu ay si weyn markaasi isugu soo dhawaanayaan loona abuurayo qorshe ballaaran. laakiin dhinacyada Soomaalida ee markaasi beesha caalamka la kulmay ayaa waxaa loo maleynayay in ay qayb weyn ka leeyihiin markaasi dhinacyada mucaaradka ee dhawaan markaasi sida weyn isugu biiray. laakiin si walba ha ahaatee waxaa durba hadda soo cadaaday miiskana soo fuulay doonista iyo damaca markaasi golaha markaasi mustaqbalka Soomaaliya iyo sidoo kale dowladda iyadoo dhinaca kale la door bidayo in xaaladda la sii dejiyo. beesha caalamku waxa ay door bidaysaa in Soomaaliya laga helo wax ka badan 2 xisbi waxaana haatan muuqata in si weyn markaasi siyaasiyiinta hadda isbarbar ordaya dhammaantood ay ku kala aruuri doonaan xisbiyada markaasi sida weyn looga wada hadlayo. xasan sheekh maxamuud hore ayuu shaaca uga qaaday in xisbigiisa wadajirka iyo cadaaladda ee JSB horena loo oran jiray UPD uu yahay midka uu doonayo in cid kasta uu kula tartamo sidoo kalena hadda siyaasiyiin badan ay u tafaxayteen sidii ay kugu biiri lahaayeen kuwa kalena ay hadda ugu biireen. waxaana dhanka kala muuqata in haatan markaasi qorshaha kale ee xiga ee wadamada beesha caalamka gaar ahaan dowladaha Turkiga, UK iyo Mareykanku ay doonayaan ay yihiin sidii markaasi labada xisbi ee wadajirka ah ee markaasi sida weyn haatan isu barbar socda ee nabad iyo nolol ee uu hogaaminayo Maxamed Cabdulaahi Farmaajo iyo sidoo kale xisbiga himilo qaran ee Sheekh Shariif Sheekh Axmed ay u noqon lahaayeen labada xisbi ee soo 1 iyo 2 iyo 3 ee markaasi siyaasadda Soomaaliya. laakiin waxa muuqata in dadaalada xisbiyada badan yihiin kuwa kale oo dowladda Soomaaliya ay si weyn markaasi ugu doonayso inay ku kala joojiso xisbiyada iyadoo markaasi xisbiga haybad qaran uu noqon karo mid kale oo ballaaran oo hanta qorshe ballaaran oo ku noqon karo xisbi buuxa marka laga amba qaado dadaalada dheeraadka iyo sida ay uga dhex muuqdaan siyaasiyiin culus oo qayb ka yahay Fahad Yaasiin Xaaji Daahir oo horeba markii hore u soo kabay ninka lagu magacaabo Maxamed Cabdulaahi Farmaajo. dadaalada beesha caalamku haatan waxay u muuqdaan kuwa markaasi si weyn isu dardargelinaya kulamo gaargaara iyo sidoo kale dadaalo badan oo ka soconaya magaalada caasimadda ah ee Muqdisho. haatan waxaa muuqata isku soo dhawaashiyo iyo sidoo kale dadaal ballaaran oo beesha caalamku ay ku muujinayso sidii dhinacyada Soomaalidu ay u noqon lahaayeen kuwa markaasi heshiis dhaba ka gaara xaaladaha taagan iyo sidoo kale waxyaabaha muuqda. laakiin si walba ha ahaatee marxaladaha iyo sidoo kale waxyaabaha sida weyn dhinacyadu ay isugu diidan yihiin haatan waxay u muuqdaan qorshe ballaaran kuwaasi oo dhammaantood salka ay yeelan karaan ama sidoo kale xaaladda ay markaasi u jahayn karaan jihada siyaasadeed ee noqon karto mid aad markaasi u sii socota. xasan sheekh maxamuud tan iyo markii markaasi loo doortay madaxtinimada Soomaaliya waxa uu mar walba ahaa saaxiibka koowaad ee dowladda Turkiga. waxa la aaminsan yahay qorshihii dheeraa ee Turkiga uu la soo amba qaaday sanadkii 2015 inuu ahaa dadaalkii ugu dheeraa ee dowladda Soomaaliya ay la gaartay markaasi. laakiin haatan waxaa muuqata dadaalo badan oo dowladda Turkiga uu ku bixinayo mar kale sidii xasan sheekh maxamuud uu ugu soo laaban lahaa kursiga sidoo kalena looga fogaan lahaa in qof cusub uu yimaado. laakiin haddana sidaas ay tahay door kale ay leeyihiin dowladda Turkiga oo waxay door bidayaan sidii loo sii wadi lahaa qorshe ballaaran oo lagu raadinayo siyaasi kale. dhanka kale marka laga amba qaado xiriirka Sheekh Shariif Sheekh Axmed iyo sidoo kale dowladda Turkiga ee soo bilowday 2011 wuxuu ahaa mid kale oo hadda u muuqda in Sheekh Shariif Sheekh Axmed dhankiisa ay door bidayso dowladda Turkiga iyadoo dhanka kale uu miiska saaran yahay Maxamed Cabdulaahi Farmaajo. laakiin waxa la leeyahay diidmada ka timid siyaasiyiinta qaarkood ee Maxamed Cabdulaahi Farmaajo iyo siyaasadiisa inay gaar ugu tuman tahay waa mid ka mid ah waxyaabaha hadda sida weyn la isugu diidan yahay. waxaana muuqata hadda qorshe ballaaran oo dhinacyadu ay si weyn markaasi u muuqdaan waxaana hadda si weyn la isugu diidan
diidan yahay marxaladaha taagan iyo sidoo kale qorshayaasha ballaaran ee hadda dhinacyadu ay sida weyn ay uga wadaan magaalada caasimadda ah ee muqdisho. xerada xalane iyo xayndaabkaasi wuxuu noqday meel dhinacyada sida weyn markaasi loogu canaanto. kulamadii ugu dambeeyey waxaa muuqatay in miiska la isku garaacay, runtana la isku sheegay. xasan sheekh maxamuud waxaa loo sheegay in sanadka markaasi 2026 looga haray, laakiin loo baahan yahay wixii ka dambeeyay inuu la yimaado doorasho heshiis lagu yahay. qodobada sida weyn dhinacyadu ay isugu raaceen waxaa qayb ka ah in laga taqaluso oo laga tago guddiga doorashooyinka. taasi waxay noqon kartaa mid xasan sheekh maxamuud ka hor istaagi karta hankiisa doorashooyinkii ka dhacay dowlad goboleedka koonfur galbeed Soomaaliya iyo gobolka Banaadir in ay markaasi sidoo kale ay ka dhici karaan maamulada kale. laakiin doorashada federaalka ayaa noqon doonta mid markaasi guddigeeda doorashadu uu noqon doono mid loo wada siman yahay oo dhinacyadu si weyn markaasi ay isugu raacsan yihiin. marxalad kasta iyo xaalad kasta oo jirta hadda waxaa muuqata qorshe ballaaran oo dhinacyadu si weyn markaasi ay isugu diidan yihiin, xaaladan ay usii ambaqaadayaan. waxaana haatan muuqanaya dadaalo ballaaran oo dhinacyadu ay markaasi si weyn ay u gelinayaan juhdiga iyo sidoo kale xaaladaha guud ee haatan taagan. marka laga ambaqaado qorshaha ballaaran ee markaasi mucaaradka iyo dowladda federaalka ee Soomaaliya iyo sidoo kale dadaalada beesha caalamka oo ay horboodaysa dowladda Turkigu, waxa uu haatan u muuqdaa in markaasi si weyn dhinacyadu ay isugu hayaan xaaladaha guud ee jira. Soomaaliya waxaa la leeyahay waxay u jihaysan kartaa jiha kale marka laga ambaqaado xaaladaha hadda sida weyn markaasi la isugu hayo. beesha caalamka waxay hoos u dhintay markaasi awoodeedii iyo sidoo kale cadaadiskii tirada badnaa, laakiin dhinacyada Soomaalida ayaa hadda waxaa la siiyey khiyaar iyo sidoo kale qorshayaal ay wax ku wadi karaan. laakiin in la heshiin waayey dhinacyaduna ay isku soo dhawaa waayeen waxa ay ka dhigan tahay in markaasi beesha caalamku ay qaadi doonto tallaabo. taasina waxay noqon doontaa mid cawaaqibkeeda aan la mahdin oo doorashooyinka iyo sidoo kale waxyaabaha kale halka loo yeeriyo ay dhici doonto. xasan sheekh maxamuud ayaana u dagaalamaya sidii qorshe ballaaran oo markaasi dowladda federaalka ee Soomaaliya ay ku hogaamin karto doorashooyinka soo aadan uu ku qaban lahaa. laakiin asagu geed dheer iyo geed gaaban ayuu u fuuli doonaa sidii uu ku soo noqon lahaa mar kale uu ku noqon lahaa madaxweynaha Soomaaliya ee 3 jeer la doorta. waana mid ka mid ah waxyaabaha rikoorada uu dhigi doono ay adkaan doonto in cid kale ay dib u dhigto. taasina waa mid kale oo muhiim ah iyo sidoo kale sheeko ballaaran oo marnaba aan la aqbali karin. xaalad kasta oo ay jirta iyo sidoo kale si walba oo ay noqoto waxaa haatan muuqata qorshaha iyo sidoo kale dadaalada dheeraadka ah ee dhinacyadu ay sida weyn markaasi isugu hayaan. waxaa si walba ay noqoto xaalada iyo sidoo kale dhaqsiyaha iyo sidoo kale qorshaha ballaaran uu noqon doonaa mid si weyn markaasi usii maamula xaaladaha guud ee jira. dhan walba ay noqoto marka laga ambaqaado dhinacyada Soomaalida dadaaladooda iyo sidoo kale cadaadiska beesha caalamku waxa uu noqon karaa mid kale oo gaar ah. Maxamed Cabdullaahi Farmaajo waxa uu dagaalamayaa hogaamiyihii uu talada u dhiibay inuu mar kale kala wareego. waa sidoo kale Sheekh Shariif Sheekh Axmed ayaa dhankiisa doonaya inuu markaasi Soomaaliya mar kale ka noqdo madaxweyne marka laga ambaqaado dadaalkiisii sidoo kale qorshihii ballaaran. shacabka iyo dadkuba waxa ay sheegayaan Sheekh Shariif Sheekh Axmed inuu ahaa madaxweyne qunyar socod wax isku wadi karay, dadaal badan bixin karay, inkasta oo siyaasadiisa lagu tilmaamay mid aad u jilacsan oo mararka qaarkood nin u dhimriya dowlad goboleedyada sidoo kalena awoodooda aad sare ugu qaada. laakiin Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo sidoo kale Xasan Sheekh Maxamuud labaduba waxaa lagu eedeeyaa inay si weyn markaasi dowlad goboleedyada u cadaadiyaan sidoo kalena ay ula dhaqmaan si ay aad u adag tahay mararka qaarkood marxaladaha iyo sidoo kale waxyaabaha qaarkood in la xaliyo. haatan dhinacyada Soomaalida si walba ay noqoto iyo sidoo kale xaalad kasta oo jirta hadda waxaa muuqata meeshii ugu dambeysay in la joogo. kala jabka markaasi xubnaha mucaaradka iyo sidoo kale kala fogaanshiyahoodu waxaa la leeyahay waxay noqon kartaa dhibic siyaasadeed oo Xasan Sheekh u kororta, ayagana waxay noqon kartaa khasaare soo gaarta. laakiin waxa kaliya oo lagu talinaya waxay tahay is urursigooda iyo sidoo kale cadaadis kasta ay Xasan Sheekh saari lahaayeen inay ku xiran tahay oo kaliya midnimadooda. golaha mustaqbalka Soomaaliya dadka ku midoobay dhamaantood waxaa la leeyahay waxa ay leeyihiin han ka yar markaasi midka Xasan uu leeyahay. laakiin waxa la leeyahay waxa laga dhursugayaa marxaladda iyo sidoo kale xaaladdu halka ay ku biishban doonto marka la gaaro 2027 markaasi oo loo madlansan yahay doorashooyinka Soomaaliya.